فتحاد webiga Shabeelle oo saameyn xoogan ku yeelatay tuulooyin aad u fara badan ee hoostaga gobolka Shabeellaha hoose ayaa gooyay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo iyadoo biyuhu ay wadadu ka gooyeen buundada Warmaxan waxaana kala go'an isu socodka dadka iyo gaadiidka fatahadan ayaa waxa ka dhashay dhibaatooyin dhinaca nolosha iyo caafimaad darro dadka ku nool deegaanada Shabeellaha hoose ayaa waxa soo wajahaya gaajo macluul iyo cudurro ka dhashay fatahada webiga Shabeelle Cabdi Cali Geedo oo kamid ah dadka deegaanka ayaa ka waramaya saameynta ka dhalatay fatahada webiga Shabeelle dadka markii doorooyinkii baashay ninka ugu jirjiray wixii dhan baa ku tageen markii dambe sigida shalay booba lagu bixinay waxa la yiri markan hal moota la muxuu jimisi caasiban oo sida darwalka qasirtii goola la goodi hadda baraka hadda la bilawd maan biyo hore wadadii qaadi jireen way qaadeen hawlaado dadkii hore way dhibaan maahan biyo shalay maanta wadada oo soo gal degmada wallahi biyo la galo la daafeediyo iyo dhumayl ma laga soo kay qaxootiga waa qoyn waa naga soo siiyay koonfurna naga soo siiyay biyahan biyo hore biyo wadigu waa ka wixii iska dhaxyaan la arkay ma hadda biyo aad dhaxqaad wax aad ka dareemayso macnaha oo aragtay ma jirto gaduuda isu bedel ay ku biyo xareed oo waliba ka bedelihiin wallahi dadka daawo ma lahayd shiineeri ma lahayd